السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub amaanta waxaynu muuqaalkeena ku eegi doonaa qofkii ugu daada yaraa ee u geeriyooda cudurka coronavirus ee dalkaasi Ingiriiska waxaa guud ahaan dalka Ingiriiska si weyn looga naxay geeridii qofkii ugu daada yaraa ee dalkaasi u geeriyooday cudurka coronavirus oo noqday wiil Soomaali British ah Ismaaciil Maxamed Cabdi Wahaab wuxuu ahaa ciyaal iskuul oo 13 sano jir isla markaana aan lahayn xaalad caafimaad iyo cudurro kale waxaana lagu arkay calaamadaha cudurka coronavirus sida ay sheegeen qoyskiisa waxaana la dhigay isbitaalka King's College markii ay dhibaato ku noqotay neefsashada halkaas oo xaalad degdeg ah la geliyay laguna xiray qalabka neefta u sahla jirka laakiin nasiib darro waxa uu cudurka u dhintay shalay qoyska Ismaaciil Maxamed oo deganaa xaafadda Brinton ee magaalada London ayaana u suuragelin inay arkaan wiilkooda waqtigii ugu dambeeyay ee noloshiisa iyadoo ay lama filaan ay ku noqotay geeridiisii waxa ayna diideen inay muuqaalkiisa la wadaagaan saxaafadda Ingiriiska iyadoo dhawaan uu cudurka kansarka u geeriyooday aabahood lacag badan ayaa lagu yaboohay bogga lacagaha lagu diro ee GoFundMe oo lagu baahiyay in qarash dhan 4,000 oo gani loo baahan yahay aaskiisa iyo taageerada qoyska uu ka baxay laakiin dad badan ayaa lacag ku yaboohay iyadoo lacagtaasi ay gaartay in ka badan 50,000 oo gani xilligan geerida Ismaaciil ayaa timaaday iyadoo shalay ay Ingiriiska u ahayd maalin la diiwaan geliyay dadkii ugu badnaa ee u geeriyooday cudurka coronavirus waxa ayna gaareen dadka u dhintay 381 qof